kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada sheekadii jacaylkii qurba jooga qaybta koowaad. Sumaya waxay ahayd gabar yar oo dugsi dhigata aad ayayna u dadaal badneed, mar waliba kaalinta koowaad ay ka galin jirtay iskuulka, waxayna qaadan jirtay abaalmarinaha iskuulka kaalinteeda ee kaalinta aqoonta. ma lahayn saaxiibo badan, balse macallimiinta iskuulka iyo maamulka aad ay u jeclaayeen dadaalkeeda iyo sida ay wax u barato. wax taleefan ah ma isticmaali jirin, cidna ma aysan aqoonin. hooyadeed iyo aabaheed ayay la nooleed. maalintii dambe ayuu aabaheed dhahay, aabe waxaan doonayaa inaan ku siiyo abaalmarin, haddaba wax dalbo. waxaana dalbatay taleefon. aabaheed kama uusan diidin oo waa u soo iibiyay, waxayna ku biirtay mawjadaha dhalinyarada sida joogtada u isticmaala baraha bulshada sida Facebook, WhatsApp, Instagram-ka. waxaa loo sheegay in dhaqan xumo ay taalo baraha bulshada iyo akhlaaqda dad aan lahayn oo isticmaala. sidaas darteed cabsi ayay ka qabtay oo waa ay ka shakasaneed. ninkii la soo hadla ama ku soo darsada ay aqbasho u bog weysa bloggeeda ayay xal uga dhigaysay. waxay joogtaba dhinacay ka rogto. waxay barta Facebook iska barteen wiil ayada ka daaweyna ula muuqday qof aad u wanaagsan oo joogay wadamada qurbaha ah. kadib si fiican ayay u wada hadleen, wuxuuna u sheegay inay waxbarashadeeda ku dadaasho maadaama uu arkay inay tahay qof wax baranaysa. wuxuu u soo diray isagoo dad dhiirigelinaya wacdinaya. waxay dhex dabaalatay profilkiisa, waxay ku aragtay mar walba inuu dhalinyarada waaniyo. wuxuuna noqday saaxiibkii ugu horeeyay ee Facebook Sumaya. ninkana waxay u maleynaysaa inuu yahay nin wanaagsan oo mustaqbalkeeda ka talinaya, qalbigeedana si tartiib ah ayuu ugu siqay. ninkan wuxuu yaqaanay sida gabdhaha loo dago, sidaas darteed ugu horeyn uma uusan sameyn wax ay ka cararto ama ay ka dido. sida qof wanaagsan wanaaga jecel ayuu kale ayuu u waaninaya, iyaduna way aamintay saaxiibka mar walba la hadla ee waaniya ayuu noqday. mararka qaarna lacag ayuu u soo diri jiray. Sumaya waxay la yaabtay wanaagga ninkan iyada oo qalbigeeda ay siisay jacaylka qurbaha jooga. jacaylka qurbaha gabdhaha Soomaaliyeedna waxay aad u jecel yihiin ragga qurba jooga ah. anigu sukuma jiray sanadka bacdi ayuu u soo bandhigay jacaylkeeda Sumaya, wuxuuna u sheegay inuu rabo inuu mustaqbal la wadaago. waxa kale oo uu sheegay inuu aad u jecel yahay meel alla meesha doontana oo dejin doono. Sumaya mar way faraxday, waxay ku faraxday ninkii ay jecleed inuu u soo bandhigtay jacayl. haddana dhinaca kale waa ay ka naxday oo waxay ahayd gabar waxbarashada aad u jecel, waxayna iska ilaalin jirtay waxbarashada markaasi ka wiciya, balse jacaylkeeda kama aysan sii siqin. waxa ay u sheegtay inay ka soo fikiri doonto. halkaa noo joogto qaybta koowaad ee jacaylka qurba jooga ah. tan qaybta labaad ku kulmi doono. nabadgelyo. page-ka follow gareeya, like-tana ha ka iloobinina. mahadsanidin.